السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي waxaa la wiil hoog soo gubtay qabiiladista number 1 former warlord wadanka soo qasay 30 sano ugu dambeysay waxaan rabay inaan madaxweyne noqdo iska daayay madaxii aqal qalooday saan meel walba madax dirbi ugu garaacay qabiilkayga been bay sheegeen inkaar Allah ku riday 30 sano qoriye ii dhibeen waxay dhaheen qabiilkaas weerar dhulkaas qabso shaqadii inta ku jiray Sheekh Shariif ay soo sabaxa bus madaxweyne noqday حاسس شيخ محمود بوس مدحوين فرماج بوس وايا ورنيوني ما كان دقالنا ولقد ما قلنا سي مدحوين كون نقدين واني ما wax bartay aniga intay faraa'iq qalluucanaayeen madax i busbus ma dagaal ku jiray nima kan wax barasho ku jireen qabiilka beenaalayaal waa fanaakatul wanaaka inkaar Allah in ku rido fariin waa iqal qalluucin madaxweynena mi dhalinyartu waxaan u sheegayaa adeer madaxayna qalluucinin wax barta wadankeena dhista hadii kale aniga amala wajaaqatul baraaqa noqonaysaan wallahi runta in sheegaya فيري فرماجي الشيخ شريف فيري وراك صبرت هذا ما تحت نمرت قبيلك كبره ولف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حلم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما صدق الشيخ إبراهيم وانفع هذا قرآنك وحنا كل حكسن دونا هستي علنك وزداق فضلا. نيو بير رمضان ميا صاحب رمضان واحد نيو بش حاجة لقى أركي بيض ما لقى أركي نيو أنا قلمودو أنا محنا قال دي بيض لقى أركي وربيض وصدق الإسلام مجلوان رياد إلهي كل شيء ما بيض ولا نسوي منه بري kusoo dhawaad ciyaar adag oo dhaxmaraysa mucaaradka iyo dawladda Soomaaliya farmaajo ayaa Trubas dhiga khayr ayaa kontrolshay waa dangerous waxa way Broriga wali khayr wato khayr waa dhaliyay 1-0 nabad iyo nolol wan mucaaradka niil khayr ayaa maalmahan dambe injiri ku jiray laakiin daynaylo si fiican ugu soo alamitay sidoo kale farmaajo ayaa dhuunta lagu dhaganaa laakiin Trubas waalan ayuu dhigay mucaaradka difaacooda waxa ka qaldan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa loo sheegay shaaftaha kicina la dhahay laakiin waa kaas xagaas u seexday ma laga yaabaa in ay ka badisa waa laga yaabaa laakiin al-shabaab ay sugayso oo kulan adag al-shabaab dhaxmari doono marka waa arki doonaa meesha ku dhamaato Oh!